والله أبو سحنا وقالين إلا هدر تانا لوجرا نقص من جردل من نقدر إنه ويدعوان إذا ماذا ما كلوا واقر تقف كل الدنيا من أضيعها وماشي جون واقر تذكر الجريا إسكالها هاي وهاي أو قافف كمرك قافف كأيه ماشي شيء من قافف بدنا يسقط درسين ويجي جوين إلا هتا تالو مركا سان المدحوين إنه كسي جوجن وربع سنة كدرس من نقولين because حدا دور شبينات قفي عد انتو قبطي ودتكي سكرية أوسي حدا ندها عاصمة سميها عاصمة دي واحد حمل ومغلظة حبذا كجرا ماشي برنامج ما فهمتي مركا دتكي والدي لا حتى مركا إنه دوك بوب إنه صارت اسكتر شو دستور كانت كلجيس إنه سميستو اسكو من نقولين because تذكر أسيا ودارت مرة بعده إيمال هذا الصوماليين هدول نقولين أو هذا قبيل نقطة وما تدل كودها ودها قبيل ما دعكروا لكن شاتي الدولة على سوق شنيا حبذا هذا وأودك مركز دولكين يجمع قفل بوحة وشيء إن دولكان خادنا يتمرسون الله والله إن دولكين اللقوف كرين لنا ندي سنين ما فهمت حتى ولا ما دي سنين نكى معنا أو وطو واحد دبان وأنا كان حتى حبذا نقول جراء مجدا إلا حتى أنا دولكين جونا وأكون مالنا ما أنت مرسول هذا أنا واحد مالنا رجعنا نسانا نولد لا يكون أنا الدولة نودها نين دولة أيدتكم مثلا نقول عاي حبذا يا سان نقول فرايا جعفر أسأل قرأ مثلا تذكر أساقال جعفرو أم بلين نقا أم بقولت كشو كارت تذكر هذه الدفاع كارو أنا حلدان كلارنا مالا لبض حلدان أبانا وحسين إيدو جعفر أبانا ما أنت حسين إيدو جعفر وإني تذكر سو استاجان نسو قرب استاجان هو يوينك يا لدي الأضياء يا لدي ماذا نو يرداوع نو يردو كان عقفا كجرو حسن شيقا كان مونكابا نميد لو غارة يا مان وأمقلي ساعة حبرت بيروت يقول سعود جيت كان تاجان والله أنا حبتك بقين هذا سيجار أوتيل مانتو halka la isku haysto oo dhulka ah ee la duminayo daymaroodi la dhahaa waaxda waxa ay degmada gubta waaye marka taliso iyo sidoo kale iyo sargaalka kale aad sheegtay labadaba ma waxay ka tirsan yihiin ciidanka booliska degmada daymile ka tirsan yihiin iyo kan oo hadeertaan degmadaaneetii ku meel gaarka looga dhigay oo bacol leeyahay waxay xuslay degmada ku qabo bacol dada keensan degmadana dada iskale dadana goofaska iskale bacol shalmaana darada دي انت الله كينا واحد لو ديو ما فهمت هذا مركز ciidankii soo watay dadkiisa oo ku hogaamiyay wallahi inuu degmada uma barabna waanaga daynile ka tirsantaa saacadan laga bilaabo degmada gubta way hadda kaldhig ay lahaayeen malaha dhulkaana ma gadmaayo ninka oo xildhibaanka ah oo la sheegay inuu nuurtug la ka yimaado u dhashay iska dhaaf way marka xildhibaan shacabkii la bixiyay ilaa isaakan joogna anaga dhulkeena ma gadmanaay intay gabarnaga nooshaayna dhulkeena waa difaacina lama qaadanayo maalinta ciidii dadka eedayaan anaga ciidimayna waa soo baxayna maalin walba wuxuu dhahaa abniyaan ka dhig abniga daraatiis ma nolol booba dadka abnigan ibla loogu shaqeynayo ciidanta xasalada waagiisa hor asoo calool xus iyo waxaas mariya calasi u bixiya askarta oo bahdil askarta magac loo yeelay la sameeyay oo xasan cali qayre oo sameeyo ka shaqeey ayuu u yimaada ma fahamta xasan hadda xaalada guud waa sidee deegaan dadka waa la bixiyay askaraay maanta odayaasha waa la dilay hadda odayaal la hadda marka ila hadlaysa xabada dhacay hadaad maqlayso ma fahamta meesha jidkan taaganahay askarta qoriyay noo wataan waa kuwan hadda la bursanaay marka waa kaasa dhulka la isku haysta marka ma dhul deegaanaha mase waa dhul dad shacab ay leeyihiin waa oo deegaan waa goofleyda iska leer cawaal la dhaayar cawaal oo dhul dawlad ma aha dhul dawlad ma aha dhul goofaf dawlad ma haysta wixii dawladda ay ismari calasta waxa u degan ciidanka oo xasilinta u degan xasan ma jiraan marka ganacsato ku lug leh oo la idin sheegay nin xildhibaan ku jira xildhibaan yuu yahay qaraabeyn abgaal waa nin abgaal oo keensado laakiin anaga abgaal ma dhaco nin xildhibaan oo kaligiisa waaye umada dhan oo shacab way dhimantahay oo Soomaaliyeed waa la wada dulman yahay dawladana iyadoo hawiil leeyahay maanta hawiil kaliya isku soo haray oo dadka qof walba oo damiir leh oo dadnimo leh dawladda way ka baxday because u socdo xasan wuu ogaa xasan in adeereeyo wata waxa dadkiisana ma siin anaga hawiil la sheegana dulmanahay maanta xilalkii oo naga qaatay dawladda waxaan ku leenahay male wax noolada la asiyay male haddana hadeertaan dhulkeena ugu fakalaana waad maasantahay marka mastuur waa soo baxayna dagaalka siyaasadeed ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ayaa si sal balaadhay iyadoo markii ugu horeysay dowladda Soomaaliya ay war ka soo saartay xaaladda maamulka koonfur galbeed go'aanka maamulkaasi uu xiriirka ugu jaray dowladda dhexe ee Soomaaliya saacadii la soo dhaafay waxaa sare u sii kacay xiisadda siyaasadeed ee cirka isku sii shareerayso ee u dhaxayso dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed taasi oo ka dhalatay rabshado ka dhacay qaar kamid ah magaalooyinka koonfur galbeed sida magaalada Baydhabo magaalada Qansax Dheere
iyo sidoo kale magaalada Burhakaba ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. intiina la socotay wararkeena hore maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maalinimadii shalay ahayd xiriirka si toos ah ugu jaray dowladda federaalka ee Soomaaliya. dowladda Soomaaliya horaan kama hadlin dhammaan dhacdooyinkaasi rabshadaha iyo sidoo kale xaaladaha kale ee siyaasadeed ee maamulka Koonfur Galbeed, laakiin goor dambe oo xalay ah war-saxaafadeed rasmi oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa si faahfaahsan lagaga hadlay xaaladda maamulka Koonfur Galbeed, go-aanka maamulkaasi uu ku shaaciyay in uu xiriirka ugu jaray dowladda dhexe ee Soomaaliya. wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa iska fogeysay in dowladda Soomaaliya ay wax luga ku leedahay rabshadaha siyaasadeed iyo kuwa amni ee Koonfur Galbeed, iyadoo wax laga xumaado ku tilmaantay xaaladaasi. dhinaca kale waxa ay wasaaradda arrimaha gudaha ay ku amaantay Koonfur Galbeed doorkii ay ka qaadatay dhamaystirka dastuurka. waxa ay sidoo kale cambaareysay go-aanka madaxtooyada Koonfur Galbeed ay ku sheegtay inay ku joojisay wada shaqayntii kala dhaxaysay dowladda federaalka ee Soomaaliya. dowladda Soomaaliya waxa ay hoosta ka xariiqday inay ka go'an tahay xal u helidda xasaradaha siyaasadeed iyo kuwa amni ee ka taagan deegaanada Koonfur Galbeed. warka ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa yimaaday saacadoon kadib markii la xaqiijiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu ka degay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. lafta gareen oo tagistiisa magaalada Baydhabo aad loogu muransanaa iyo halka uu ku sugan yahayba ayaa la xaqiijiyay in gelinkii dambe ee shalay uu si rasmi ah u tagay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. dhinaca kale waxaa saacadii la soo dhaafay dhacay tallaabooyin siyaasadeed oo ku wajahan xaaladda siyaasadeed ee dowladda federaalka iyo Koonfur Galbeed. isdiidooyinka dhexdooda ah xildhibaanada laga soo doortay deegaanada Koonfur Galbeed ayaa ku kala fikir duunaaday xaaladda markaasi ismarwaaga siyaasadeed ee dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka uu hogaamiyo Cabdicasiis Laftagareen. qaar ka mid ah xildhibaanada laga soo doortay Koonfur Galbeed iyo senatarada aqalka sare ayaa la garab noqday Laftagareen, halka kuwa kalena ay ka soo horjeesteen. haddaba dhacdooyinkaasi siyaasadeed ayaa saacadii la soo dhaafay soo ifbaxay, kuwaasi oo muujinayo heerka xiisadu ay taagan tahay, iyadoo wajhi cusub yeelatay dowladuna si muuqata ayay u cambaareysay go-aanka uu ku sheegay maamulka uu hogaamiyo Laftagareen in uu xiriirka ugu jaray dowladda federaalka ee Soomaaliya. sidoo kale warar soo baxay ayaa sheegayo in la hor istaagay duulimaadyo ee magaalada Baydhabo ay ku tagi lahaayeen wasiiro iyo sidoo kale xildhibaano laga soo doortay deegaanada Koonfur Galbeed, balse ilaa iyo hadda ma jirto ila madax bannaan oo xaqiijin kara cidda sida rasmiga u hor istaagtay wafuudaasi ku wajahneed magaalada Baydhabo. warar qaar ayaa sheegayo in maamulka Koonfur Galbeed isagoo qudhiisu uu hor istaagay siyaasiyiin la sheegay inay ku wajahnayeen deegaanada Koonfur Galbeed, gaar ahaan magaalada Baydhabo. cid walba oo dhinaca dowladda federaalka ka socotana maamulkaasi waxaa la sheegay inuu surtaag ku sameeyo. wararku qaar ayaa ku waramayo in dowladda federaalka Soomaaliya shakhsiyaadkan xildhibaanada iyo wasiirada isugu jira ay tagi rabeen magaalada Baydhabo in ay iyadu hor istaagtay, laakiin waxaa xusud mudan inaanay jirin ila madax bannaan oo si rasmi ah u xaqiijin kara arrintan iyo cidda sida rasmiga ah ugu lug leh. Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa tallaabooyinka isxiga ee saacadihii la soo dhaafay ay qaadeen waxa ay muujinaysaa dhabaha cusub ee siyaasadeed ee uu dalku aaday, waxaana warar hoose oo soo baxay ay sheegayaan inay ilaa iyo hadda aan laga quusan dadaalada la isugu keenayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo 3 sano iyo dheeraadka uu madaxweyne Xasan Sheekh uu xukunka hayay wada shaqayn ka dhaxaysay, laakiin hadda u muuqdo in ay kala jeesteen oo aragti ahaan ay u kala tageen. dadaalada la isugu keenayo ayaan ilaa iyo hadda meesha ka marneen. يعني dastuurka inuu ku soo haray laba nin oo يعني madaxweyneyaalka ah Hirshabeelle iyo Galmudug iyo madaxweyne Xasan Sheekh si gaar ah haddana waxa uu tagay dad golaha mustaqbalka kamid ahaa oo kamid yahay madaxweynihii hore madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Khaliif Cabdiqaadir Macalin Nuur iyo xildhibaan Cabdiqaadir Cusuble oo si ehelnimada ugu tagay. annagana hadda waxaan nahay ehelkiisiyaan nahay. Soomaalidu waxay tiraahdaa imaam waxa uu run sheego walaalkiis. annaga madaxweynaha waa run sheegaynaa, waxaan leenahay mudane madaxweyne ku laabo miiska xasiloonida wadanka siyaasadda waa aad u maaragtay u qasan tahay. caawa waxaan dareemaynaa madaxweynihii Koonfur Galbeed oo kuugu dambeeyay marka laga soo reebo dadka ehelka ah oo kula joogo
يعني Soomaali waa dad wax isku darsaday qabaa'il wax isku darsaday waaye awal hore waxaan nooga maqnaa Puntland iyo Jubbaland iyo Somaliland caawa waxa ku darsantay walaalaheen koonfur galbeed ku darsamay yani waxay ku tusaysaa xaafadii madaxweynaha oo gaar ah inay hawsha ku soo aruurtay marka mudane madaxweyne waxaan ku leenahay imaam walaalkiisa oo run sheeg waa ku warcelinayna walaalaha waa ku yimaadeen si gaar ah kugu yimaadeen ayagoo siyaasiyiin ah oo kamida golaha mustaqbalka ayagoo golaha mustaqbalka ku jirana waa ku yimaadeen Soomaalidii oo dhan waa ku imaaday madaxweyne dastuurka aad leedahay waa la qabyatira oo qabyada inuu ka baxaa la rabaa yani wado uu uga bixi karo meesha ma taalo sababtoo ah dastuurka waxaa nagala dhaxeeyay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan walaalo naga maqnaa oo ahaa reer Somaliland hadday maqnaayeen waxay ku maqnaayeen waxbay tirsanayeen wixii ay tirsanayeen waxa kamid ahaa faragelin lagu sameeyay yani siyaasadda wadanka iyo tabashooyin hore ay qabeen hadda marka waa ka sii dartay oo ayaga dastuurkii ku meel gaarka ah lagu qancinayo lagu maslaxayo ayaga waxaad dhahdo waxaan tiray qabyadii aan ka tiray ayagoo maqan yani waxay ku tusay marka dastuurka 60kii oo ayaga ay wax ku lahaayeen hadii uu meesha ka baxay mid ku meel gaar ah la sameeyo waxa la dhahay walaalayaal adikaani la sugaa maalintii shacabkiina la helo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan ay isku furmaan alla qabyatira maanta marka waxay maraysaa yani dastuurka inuu ku soo haray laba nin oo يعني مدحوينيالك هيرشابيلا iyo galmudug iyo madaxweyne xasan sheekh waa ognahay waa dad ehela waa hal xaafad waaye Soomaalidii lafta gareena u dambeeyay awalna walaalihii wax nagu darsadeen waa tageen marka waxaan leenahay madaxweyne waxaad sheegaysay inaad maaragtay ka shaqeynayso Soomaali wada jir ah hadda Soomaali inay kala tagtaan u jeednaa wali waqtiga ku haray caawo 58 bariya ku hartay caawo 57 bariya ku hartay konton iyo todobadaas bari oo ku hartay wali fursad waxa u haysataa inaad Soomaali isku celiso isu soo dhoobto intii yartahay u geysata aad ka maslaxdo oo ku celido teendadii oo aad u xalliso yani doorasho ay raali ku wada yihiin aad u mahadsantahay. Assalaamu calaykum.